waddanka Australia gobol Soomaaliyeed oo dhawaantan ku biirtay golaha deegaanka magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee waddankaasi ayaa jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi ka codsatay in ay gacan ku siiyaan gudashada hawshan cusub ee ay gudagalayso. jaaliyadda Soomaalida ah ee gobolkaasi ayaa rumaysan in gabadhani ay horseed u noqon karto in Soomaali badan ay ku biiraan siyaasadda waddanka Australia. Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan inoo haya. canab maxamuud oo dhawaan noqotay xildhibaanad golaha deegaanka degmo ka tirsan magaalada Melbourne isla markaana ahayd gabadhii ugu horeysay oo Soomaali ah oo ka mid noqota golo deegaan ayaa waxay ka codsatay jaaliyadda Soomaalida ee Melbourne inay garab istaagaan oo ay ku caawiyaan shaqadan cusub ee muhiimka u ah jaaliyadaha. kulan isbarasho oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaalida iyo mas'uuliyiin kale oo laga soo doorto xaafadaha Soomaalidu ay degto waxa ay weydiisatay in la gacan qabto. waa ku maadsana inay Soomaalidana inay nacazumeen maanta ka qayb galna cashadan oo quruxda badan ma sha Allah anigana insha Allah maxaa ku dadaalay sida Soomaalida u caawi lahayn. Soomaalida Australia 30 sano ugu dambeysay ayay soo degeen waana guul in qofkii ugu horeeyay oo xil dawladeed qabta ay noqoto canab maxamuud. magaciigu waxa uu Abuukar Xaaji Xaashi waxa caawa ku sameeyay casho sharaf ah nalaga soo qayb galay ninka xisbiga Labourka madaxda ka ah iyo unionka waxaana la joogta caawa aan maartay iyadana aan xafladan ugu yeernay oo maartay ugu dabaaldegayno gabadheena adeerkan u ahay canab oo iyadana heshay maartay xildhibaan senator oo city of Yara oo aan ugu dabaaldegayno iyo gabar kale oo la yiraahdo Rose iyadana heshay xildhibaanad maartay oo city of Valley xaafadda aan deganahay. Hi everyone, I'm Bill Shorten, I'm a Member of Parliament in Australia. I've just been having a lovely dinner with friends from the Somali community in Melbourne, Australia. The Somali Australian community is doing amazing things from business to education to community life. And I know though that they feel very strongly the great traditions from their homeland of Somalia. They're doing very well in Australia. Mahad Senate. sidoo kale halkan waxa loogu mahad celiyay mudanayaasha laga soo doorto xaafadaha Soomaalidu ay ka degan yihiin Melbourne iyo madaxa ururka midowga shaqaalaha sidii wanaagsaneed ee isu garab taageen Soomaalidii xayiraada adag lagu saaray daarihii dhaadheeraa xilligii COVID-19 uu aafeeyay dhismayaashaasi. Soomaalida ku nool Victoria nasraha dhaadheer filmantan waagii dhacay maartay coronavirus oo aad iyo aad maartay dhibaatooyin badan aan la kulanay dhibaatooyinkaas oo maartay ahaa 14 maalmihii aan meesha Soomaalida ku xayirnaayeen nimankana waa gadaashiis fadhiyay waa dadkii naga caawiyay arintaaseeto ninka unionka shaqaalaha ninka xukuma iyo ninka Labourka dawladda federaalka Labourka ka ah. Abuukar Culusow oo ah ganacsade dhanka hilibka ah ayaa isna boqolaal neef oo ari ah u soo qalay dadkii ku xayirnaa sarahaasi. waagii la xirnaa lockdownka waxaan geynay xoolo badan ayaan qalnay oo maaragtay Soomaalida aan uga caawinay iyagoo nimankaas gadaashiisa fadhiyay ay aad noo caawiyeen lacagta bixin ilaa iyo waxaan ka hadlaynaa 200 300 400 oo neef ayaan maaragtay qalaynay because 3500 dad baa ku noolaa marka aad iyo aad baa Soomaalida waa la ogyahay culture ahaan dad hilib cun inaan nahay. ku dhawaad 10 qof oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo Soomaali ah ayaa doorashadan ka qayb galay sanadkan waana tiradii ugu badneyd oo Soomaali ebed sidan oo kale tartan uga qayb gasho dalkan Australia. Ibrahim Umar Baafo qubanaha VOA Melbourne Australia.